السلام عليكم كل وعنا وناسين meel kasta dunida ka joogtaan mawduucan kooban waxaan ka hadli doonaa cuntooyinka wanaagsan qofka markaas kale acid ama ay ku badan tahay calooshiisa in acid far badan ama ashta far badan calooshiisa ay soo deeyso cuntooyinka la tilmaamo waxa kamid ah alkaline foods ku waxay dhexdhexaadiyaan acid badan calooshiisa soo deeyso waxaana ugu muhiimsan yogurka ama caano fadhiga dhinaca kalena waxa kamid ah cuntooyinkaasi cuntooyinka fiber leh cuntooyinka inta badan waxay sameeyaan qofka inay siiyaan inuu xil hore markaa uu dareemo inuu dharagsan yahay isla markaana waxay yareeyaan cuntada saydka qof markaa cunayo tan waxay sidoo kale hoos u dhigaysaa ashtada ama acid ku dhacaysa qofka calooshiisa ee markaa gubniinka keenaysa waxa kale oo la tilmaamay waxa loo yaqaan biyaha waxay sameeyaan qofka inay ka caawiyaan in calooshiisa noqoto mid markaa dhexdhexaadisa acid la soo deynayo cuntooyinka la tilmaamay ee markaa biyuhu ku badan yihiin waxa kamid ah xababka ama qaraha ugu dambeyntii waxa kamid ah jinjarta ama waxa loo yaqaan jinjibisha gaar ahaan waxa la soo jeedinayaa shaah markaa jinjirka leh taas oo markaa ay ku yartahay sonkorto intaas waxa kamid yihiin waxyaabaha qofku isticmaali karo si markaa uu yareeyo acid faraha badan markaa calooshiisa ay soo deynayso tani kula dambe nabadgeliyo